maanta madaxweyne ka ah ama ra'iisul wasaare ka ah waa qurbo joog u ahaan jiray marka waxaan rabaa inaan ku waaniyo beesha aan ka soo jeedo qabiilka aan ka soo jeedo ee hawiye dad walaalaheeya dadkii dhalay dadka aan la dhashay dhiigayga inay ilaahay ka cabsadaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ka cabsadaan dagaal sukeeyo ma jiro farmaajo qabiil ma matalo hadduu matalana mariixaanu matalaa mariixaanne ayaga aaba daarood ayagaa isximaba daaroodka ayagaa isximo ayagaa dhib haysta 1996kii sidaa isku ahaan jirnay ee isku yihiin ma fahanteen marka walaalayaal aniga been idiima sheegay farmaajo qabiiliga maaha wuxuu ila mid yahay ciyaal say wallaahida ku dhalanayso qurbaha uu ila mid yahay sajuu uu ila mid yahay hadda maanta isdhaysiin ra'iisul wasaaraha ee isxigaan beel ahaan jamaad saasi usoo gashanay maya waxaan usoo galay waxa waaye Soomaalinimo ra'iisul wasaaraha hadda igu xaglisiin sawirkiisa idiin soo saaraya taas idinka badan sharaf ma idin ahan ina maanta dhameelahan soo istaagtaan magaca hawiye bahdishaan ad ka dhigtaan hawiye dad cabsanayo oo ka baqaayo in hubka laga qaaday sharaf dhac ayaa idin tahay waxaan rabaa inaan idin dhaho oon rabaa inaan idinku wanaajiyo oon rabaa inaan idin dhex dhigo nabad dadka soo gala Facebook social media-ga wuxuu noqday meesh kaliya ee ummadda Ilaahay ee ka doodo mana aha Soomaali kaliya adduunka dhan aa soo galo siyaasadda ka hadlo madaxweynaha Mareykanka la dooranaya dadkiisa way hadlayeen dalkan aan joogo Holland dadkiisi ayagana dadkooda way hadlayeen walaalayaal please farmaajo garab uu u baahan yahay garabkaas waxa waaye walaalahayga hawiye inta garab taagan in la mid ah u baahanahay inaan helo inta garab taagan ee dalka joogto in la mid ah u baahanahay waxa ahay hooyo Soomaaliyeed waxa i fiirsanayso hooyo Soomaaliyeed waxa i fiirsanayo aabba Soomaaliyeed waxa i dhala aabba Soomaaliyeed aniga qabiilka aan ahay waxa ka weyn Soomaalinimada inay ka weyntaan waxaad ku arki kartaa marka South Africa maanta dib ka dhacay kulligii waa wada oynaysiin oo aniga kamid ah dhowr sano ka hor aan soo video iska soo duubay iyadoo live ka jirin Facebook marka waa idin baryayaa ummad Soomaaliyeed isku naxariisata Ilaahay idinka dhigo shakhsiyaadka aan walaalahayga ah ee aan shalay toolo garab ku siinay inay dhiigayga kiciyeen maanta waxaan leeyahay waa idinka haray boqolka maalmood wax qabsamo koran ku soo qornay aniga iyo weyle walaalaheeyo Soomaali iga ah ee aan isku dhiigna ahayn ee aan fikradooda intaan miisaamay ama meel ku soo qoreen aan anigana ka soo qaatay walaalayaal maanta waa hadlayaa bari waa dhiman karaa adigana ila mid tahay igama sharaf badnid igama qiimi badnid madaxweynaha maanta dalka ka taliyo bari wuu baxayaa hadduu doono saadan buu dhiman karaa ilaahay cimri dheer ha siiyo ma inkaarayo laakiin adiga ma nafweynid intaasa iga codsiya inaad taageertiin dawladda Soomaaliya taas oo adiga dan ku ah oo dalkaaga dan u ah hubka laga dhigayo beesha hawiye aad maanta beesha hawiye aad leedihiina walaalayaal ma hubbaan naftiina idin badbaadin jiray waa may ilaahay subxaanahu wa ta'aala naftiina idin badbaadin jiray geesinimo hadaa leedihiina cabasho idinkama imaateen waad naceebeyseen sharaftaad naga qaadeen karaamadaad naga qaadeen aniga hawiyaan ahay waan ku faanaa wixii necb waan necbahay laakiin waxaan idin sheegayaa farmaajo ma aha qabiilaysti maalintoo noqdana aniga iyo idinkaba waa ka soo horjeysanaynaa dhibaatada hadda naga daaya please codsi iga tahay maxaa ii soo harta qurba joogta guriga maanta degantihiin bari kiridiisa daad baxsan weysid waa laga bixinayaa shaqada amaanta haysatid bari hadda ka soo degtid gaaja ku qabanayso waa fahamta Soomaa dalkaagii hooyo iyo gurigaagii aad deganaan jirtay ma deganid waa ka soo qaxday albaabada u soo laabtay faa'iido aan leedahay ma jirto haddaad wanaag ka dhalin karin ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda biliis ha isku dirin way maqlaysiin Soomaa idinkama aqli badni isku aqliyaan wadanahay marka nabadda Soomaaliya laga wada shaqeeyo wixii imaadana waa la isla arkayaa wiila maanta aan la kaftamay wuxuu ugu yiri jamaad marmar dhiiga hawiya ku qaado ugu yiri wuxuu yiri jamaad marmarka qaar dhiiga hawiya ku qaado of course aan dhahay markaas wuxuu yiri ma ogtahay yiri mariixaan inay dib ku qabaan
ummadda soomaaliyeed oo dhan ma jeerteena necab hawiya necab isaaqa necab dhibayba ku qabaanba haddaan aniga ahaan lahay yuri mariixaan ya soomaaliya oo dhan aanba ka bixi lahaa waa fahamta soo maha marka waxaan idiin sheegayaa meesha daaroodnimo ma taalo hawiyenimona ma taalo mar hore hawiye xataa isoo dhameeyey ma fahanteen marka yaa beenta helmo thank you very much waad mahadsantahay marka waxaan idiin sheegayaa please caloo jileecas dheernahay aqli isma dheerin walaalahayga soomaaliyeedoo urkayga u dabacsan ummadda soomaaliyeed wuxuuna dabacsan yahay hooyada soomaaliyeed oo maanta biyo haysanin ay cabto cunugeeda cunto ay siisi haysanin wiilkeeda aan tahriib ka ceshan karin uu urkayga u dabacsan yahay hooyada soomaaliyeed ee aan maanta ceshan karin wiilkeeda tahriib ka celin karin ama aan dawo u haynin oo dhakhtar daweeye aanan u haysanin oo urkayga u dabacsan yahay marka nabadda soomaaliya inaad ka shaqaysiin adinka dan idiin tahay aniga dan ii tahay ya dalkiina dan u tahay ma fahantiin waxaan idiin sheegay nadiif qaran waan ku salaamaya walaashay aadan sidoo kale adigana kulligin waa idin salaamaya magacyadiina ma soo wada dhufan kara waxaan idiin sheegayaa qurbahaasaan joognaa wax faa'iide aan ku haysano ma leh saacaddan aa ujeediin ya waa bil rabnaa ee tahay oo habeen ee tahay aa banaanka fadhiyaa dariskayga iga aamusi ma dhahayaan waayo gurigaygan kirada ka baxsadaa ayagana gurigooda kirada ka baxsadaan dhib iskuma qabno laakiin dharkayga xagga iigu waran ma jirtaa waa habeen saq dhaxbar weeyaan 12 habeenimo way dhaaftay ma fahmaysiin marka baa isku naxariisano intaasaa idin weydiisanayaa ya shalay toole xasan shiiqaa joogay wadanku sheekh shariifaa joogay wadanku dagaaladii wixii ka dambeeyey sheekh shariifaa imaaday wadanku wuxuu soo gaarsiiyey heer xasan shiiqaa imaaday heer kaluu soo gaarsiiyey farmaajo imaaday heer kaluu gaarsiinayaa maxaa lagu xaglinaa daaroodnimo meesha ma taalo haddaa idiin sheegayaa daaroodnimo meesha ma taalo daaroodnimo meesha ma taalo hawiinimo na meesha ma taalo way dhammaatay aniga hawiye aniga ka gubanayo qofkii dhibaayo aniga ka xumaado qofkii dhib u geysto anigaana jecel maanta inaan dawladda taageero waayo maxaa dhageyga ku maqlay maanta oo iga dhaadhacday waddankii deenta la geliyey ayaan bixinaynaa markay dheheen labadii mas-uul qaran ee saas dheheen waddankan deen baa la geliyey soomaaliya la yidhaahdaa deenta la geliyena cunugaaga iyo cunugayga iyo ilmaha soomaaliyeed oo weli dalka joogo ee berritooda soo koraayo ee waalidiintooda wax barayaan aa laga rabaa deentas inay gudaan ballanqaadyada ay dawladda samaynayso buug soo qaata ee ku qora berrina kula xisaabtama laakiin maanta haddaad hor ordiin anigaba waa soo hor ordee faa'iidana kama keenin saaxib waxaa faa'iido uga keenin shacabka soomaaliyeed oo jooga xamar qabyaaladiista ma aha anigana waa marka inaan qabiilka iska tirtiraa way maqlaysiin sama waa mahadsantihiin ilaahay ush dhexdaa nooga qabto soomaali haddaan nahay waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo guul waxaan kaa rajaynayaa oo aan kaa sugayaa inaa ilaahay ka cabsatid inay qabiilkaaga aada garab ku siinin inay dhibaato soomaaliya ka fuliyaan annagana waxaan la mid nahay waxaan kula midaan naqanaynaa waan kugu dayanaynaa inaan annagana qabiilkeena garab ku siinin gardarada next president kheyraha noqdo xasan shiiqa soo noqdo hadduu rabo farmaajaha soo noqdo hadduu rabo nin walba oo soo noqdo aa la soo dhawaynayaa hadal badan haa ma buuxiyo habeenii maalinta live soo galo inaa macaarado ama aad taageero wax micnaa ay samaynaysa ma jirto ma fahmaysiin soo maaha laakiin hal mar aan hadlayaa hooyaday i dhashay allaha u naxariistay 2 sano ka hor ee mootatay waxay tiri dawladdii markii lasoo doortay muxuu ahaa cali mahdi waxay tiri cali mahdi maxamedow ama ka muuqa meel cidlaay tiri ama mahay mudneed marsi qofkii af soomaaliga fahmaya waxay tiri cali mahdi maxamedow ama ka muuqa meel cidlaa ama mahay mudneed marsi
ma dhicin walaala isdilay waa la isbaabi'iyey ka dambana nabadaa daraa loo imaatay wiilala noogu dhashay wiilashii haddana ka dambe dowladdii allah naxariistay cabdullaahi yuusuf wiilashii qaangaara haddana ku dhinteen maalin kasta dagaal ma ku jiraysiin reer muqdisho waa dhammaateen nabadaa rabtiin nabadaa nilala soo doontay nabadda qaata nabadda qaata midna aan idiin sheego qof shaqsiga inaa magaciisa soo qaado waa awoodaa laakiin muhiim ma aha qof shaqsi ah inaa magaciisa soo qaato oo aan ka hadlo muhiim ma ah waxay muhiim u ahayn aniga qofnana uma ihi shaqaalo waxaan naftayda aan aniga ka hadlay qofnana uma ihine xayeysin qofnana ma raba inaan u hadlo shaqsi baan ahay qofkii shaqsi igu soo dhego aan shaqsi ahaan ula diriraa ama aan ula doodaa hooyaday waxay dhahday aan idinkaga sheekeynayaa dhagaysta way ka weyn tahay shaqsi binu aadan hooyaday waxay tiri cali mahdi markii lasoo doortay oo dowladdiisii aad barre la dejiyey dowladdii annaga aan u naqaanay kaligii taliya maxay talo soomaalina maxamedow dhan ay dejisay siyaad barre allah u naxariistay dalku u fiicnaay hadduu dad badan u xumaayne dalku u fiicnaay ma fahanteen waxay tiri hooyo cali mahdi maxamedow ama ka muuqa meel cidlaa ama mahay mundaad marsi waa hergabsanaya igaraa lahaada ma fahanteen marka waxaan idin leeyahay anigana horena aan u dhahay habeenkii xalfadda kheyre aan meeshaan ku dhigayna dalka holan waxaan dhahay agwaan murtiilaan isoo siiyayaa hees waaye aniga inaa heesa ma jecli inaa fanaanad noqda ma jecli waa laba caruuraa heestaa oo mid aan muddo istaal kula soo jira laakiin hadda alxamdulilah ii caafimaada sanad ka hor oo ii fiican yahay hadda alxamdulilah laakiin ani ma jeclinaa heeso sidaydaba ma jeclinaa heeso wuxuu yidhaa dhowr mar maad heystid jaamaad markaas maadaama oo bulsho badan kugu xiranta markaasaan ku iri okay hees wadani isii markaasuu isii hees wadani ah heesta wadaniga waxay leedahay hadday diir wadaagaan dood qura ku hadasho diin keliya leedahay oo dacaladeedana cadow lagaga dooro isma ayna diideene isma ayna dooxdeene rag dadaalin baa u kacay waa hadday diir wadaagto waa hadday isku kalar tahay soomaalina maxamuud jirta hadday isku kalar tahay mugdiyan ku jiraay anaa madoobahay laakiin anway alxamdulilah waa u dhalanay waxaan idin leeyahay soomaalida waxay tiraahdaa dad madow aan nahay isku diin ah gabaygeena heestan saasi ka matalaysaa waa haddaan diir wadaagno dood qura ku hadalno hadday diir wadaagto dood qura ku hadasho diin keliya leedahay oo dacaladeedana cadow lagaga dooda dacalada soomaaliya waaye waa hadda soomaalidii shalay tolay walaal isla ahayd ilaa mataqaanaa kalinka shanaad ganid marka walaalayaal qurbaan joognaa gurigayga ma bixisid kaaga ma bixiyo respectaan u baahannahay xushmad iyo kala dambeyn dalal lehaan joognaa isku dirnimada iska dhaafa ummadda soomaaliyeed ee rafaaday gaajada heeso ee maanta oraxda taagneed ee madaxweynahaas maskiinkaa ee qurbi joogta ahaayee inta baxay dalkiisa wax u qabanaya wax u soo bartay raba inuu waddanka horumar gaarsiiyo aad rabtiin inaad hor istaagtiin waxaa idinkaga fiican idinkoo cibaadaysatiin labalabaan ragca salaad u dukatiin ma fahanteen amii kaleeta kalaabada iska aadiin ilaan hooyooyin soomaaliyeed oo waxaa jiraan gabdhahoodii intay qaangaareen meesha raba ka dhaceen wiilashoodina sidoo kale marka qofna aqli kale kuma soo kordhinaysaan qofna waxba uma sheegaysaan haddaa mucaarad tihiin iska sii ahaada laakiin ani mucaaradnimadii waa ka haray hadalkayga may maqlaysiin si fiican miyay maqlaysi si fiican miigu jeedin ani mucaaradnimadiina waa ka haray hawiynimadii waa ka baxay haddaan idiin sheegayaa hawiyaan ahay naag mursadaan ahay hiraabka la sheega aniguu dhalay oo abgaa cismaana dhalay waxaan idiin sheegayaa maanta aniga farmaajo walaal ka dhiganayo waalid ka dhiganayo anigu madaxweynahayga yahay shacabka soomaaliyeed oo rafaadayo oo dhibaatoonayo oo idhibayso diiftoodii ee idhibayso oo waxay tol tahriibkoodii dhibaayo yaa aan garab taaganahay ummadda soomaaliyeed hooyaan ahay hooyada soomaaliyeed ilmaheedii dhiig baxayo ee xabadda iyo qaraxa iyo rafaadka iyo burburka lagu dulhaayo ay dhibayso
ما فهمتين سوما مرك معارض نمدين اسكوتا wax ay igu fadhiisiin laakiin ma jirto laaga hadar ma idin saara hadar rab sheera in daha hadar waan ku qoslaa wax macna igu fadhiisiin ma leh illa uma naxaysiin hooyo Soomaalida ani ila mid ah uma naxaysiin naxariis dhan ma haysatiin ma fahanteen aqligiina dhanna wuxuu ku soo aruuray ma taqaana inaad shakhsi bini aadan wax ka sheegtiin shakhsi bini aadan inaad wax ka sheegtiin oo aqligiina ku soo aruuray marka waxaan idin dhihi lahaa nabadii nolol insha Allah Soomaaliya ilaa waxa uga bareena biyahaas aan galaas ku soo shubtay ee cad mujida biyo cad Soomaa maanta mujida saas u daadin karaa because qaxootiyaana hay lacagtiisa ana baxsado laakiin hooyo Soomaaliyeed oo aan bixin karin aad dalka hooyo joogto hadda xaasid ku tahane naarta ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kugu bishaareeyo naarta ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kugu bishaareeyo ma fahanti hooyo Soomaaliyeed ilmaheedii biilan karin aad dalka joogto dagaal da uu horseedi rabtid oo rabtid inaad qolo iyo u kala dhigtid iyo maalin kasta aad meeshan qabiil caayna soo gashid arabtid ya arabtid inaad soo istaagtid adoo qaxootiya aad maalin kasta rabtid in ummad ilaahay caaysid ilaahay kama baqaysid rasuulkiisana ma taqaanid madaxweynaha Farmaajo annaga rajaan ka leenaa 4 sano haduu rajadeena noo fulinayo wadankan deenta ka bixinayo ummadaasna ma taqaanaa Xasan Sheekh oo 4 sano soo mootiyay uu rabo inuu hoosh dhiman uu rabo inuu dhameystiro asiga iyo ra'iisul wasaaraha iyo maxaytolo duqa magaalada adiga hadda hor taagan tahay ee rabtid dhuunta inaad qabatid dhuunta Allah ku qabto waa shakhsi kasta oo mucaarada ma fahmaysaa marka waa maadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أجابين وأهي يا إلا يا بنين يا هي إلا صومالي أنا وأهي درعين واقشنا هاي مركا السلام عليكم هذا الوقت ما هذا نظيف أباي ولا هو اندالي بالله بمنكم الشيء جاي قلبي قرع إنه مركا هوية لقى أرسنا يا إن دارده سودولي ودنك وحلابي وريا لقى أرسنا يا صدقك أرسن كرو هوية دارد ما إسأك دقن يا دواليسين يا ربتين مدحينا كاقشين صاحبي يا I'm sorry جماعة جستو إذن كارتي أول بسياسة مجعلين يبوق كذا يمدحنون كذا وفهمت يا سماح نبض إن الله إن شاء الله ودن كان الصومالية السلام عليكم ورحمة الله